Assalaamu calaykum. Irbada kulleysada ee Soomaalidu u taqaano ee oxytocin sababaha loo qaato maxay yihiin? Waa maxay ayada? Maxay hooyada ka caawinaysaa? Haddii xilli aan la gaarin hooyada la siiyo, maxaa dhibaato ah ku imaan karo? Mowduucaas ayaan maanta ka hadlaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Ugu horeyn inta aanan ka hadlin cirbadan iyo xaaladaheeda iyo sababaha loo qaato, marka hore waa inaan isla fahanno xanuunka hooyada xilliga ay foolanaysa qabanayo, qaabka uu u imaanayo iyo meesha laga soo deynayo oo sababta u noqonayso inay hooyada xanuun u qabto. Markaas kadib ayaan fahmi doonaa cirbada sababaha loo siiyo hooyada. Marka uurjiifka waqtigiisa uu dhameysto oo uu diyaar u noqdo in uu banaanka u soo baxo, waxaa fariin loo dirayaa maskaxda qayb ka mid ah oo loo yaqaano pituitary gland. Halkaas ayaa waxaa laga soo deyn doonaa hormoon loo yaqaano oxytocin. Kaas waxa uu qayb ka qaadan doonaa in hooyada uu ka caawiyo in uu xanuun yimaado. Markii hormoonkaas laga soo daayo maskaxda qaybta ka mid ah ee loo yaqaano pituitary gland, waxa uu soo raaci doonaa dhiigga. Kadibna waxa uu imaan doonaa minka si halkaas uu uga sameeyo wax loo yaqaano contraction ama xanuun si uu u yimaado. Hormoonkan loo yaqaano oxytocin markii la soo daayo waxa hooyada ay dareemaysaa xanuun. Xanuunka hooyada ay dareemayso waxa uu ku xiran yahay xaddiga ama tirada oxytocin ee maskaxda laga soo daayo. Shaqada uu noo qabto hormoonkan loo yaqaano oxytocin muxuu yahay? Muxuu hooyada ka caawiyaa hormoonkan? Shaqada koowaad ee uu qabto waxay tahay xilliga foosha in uu sameeyo xanuun ama contraction si uurjiifkii uu banaanka ugu soo baxo. Shaqada labaad uu qabto waxay tahay in uurjiifka marka uu soo baxo kadib uu sameeyo haddana contraction ama xanuun si minkii uu u xiro. Shaqada saddexaad ee uu qabto hormoonkan waxa ay tahay wuxuu qayb weyn ka qaataa soo saarista caanaha si ilmaha markuu banaanka yimaado uu u helo caano ku filan. Inta ay hooyada nuujinayso ilmahaasna waa la soo deynayaa hormoonkan. Haddii uu yaraado soo deynta hormoonka loo yaqaano oxytocin, maxaa ku imaan kara hooyada? Number 1, hooyada waxaa ku yaraanaya xanuunka. Xilliga ay foolanayso waxaa arkaysaa hooyadii oo xanuun badan aan lahayn. Midda labaad oo imaan karto waxay tahay markii ay dhashay kadib, maadaama hormoonkan loo yaqaano oxytocin uu yar yahay, hooyadu waxay isku arkaysaa dhiig bax zaa'id ah. Midda saddexaad oo imaan karta ayadana waxay tahay in caanihii uu helayay dhallaanka markuu banaanka yimaado kadib uu yaraado ama caano ku filan uu heli waayo. Maadaama shaqooyin waaweyn uu u qabto hooyada iyo uurjiifkaba, muhiim ayuu u yahay hooyada hormoonkan soo deyntiisa. Haddaba in uu yaraado maxaa sababo? In uu yaraado waxyaabaha keeni karo waxaa kow ka ah in uu qalqal ka jiro soo saarista hormoonada jirka hooyada. Haddii uu qalqal ka jiro ama dhibaatooyin ay ka jirto hormoonada kale ee jirka sida caadiga loo soo deynayay, saameyn ayay ku yeelanaysaa. Tusaale haddii hooyada thyroid ay qabto kale way saameynaysaa. Sidoo kale hooyada haddii energy fiican aysan lahayn, waayo maskaxda mar walba ay shaqo qabanayso waxay u baahan tahay energy iyo tabar. Si hormoonkan oxytocin loo soo saaro, hooyadu waxay u baahan tahay in ay hesho energy fara badan oo ku filan. Haddii ay weyso tabartaas iyo awooddaas, waxaa yaraanayo soo saaristii hormoonkan oxytocin loo yaqaano. Waana sababta inta badan hooyada xilliga ay foolanayso loo yiraahdo wax energy ku siinayo cab sida shaaha oo kale. Hadda aan u imaano cirbada kulleysada ee u taqaano Soomaalida oo hooyada marka ay foolanayso la siiyo waa maxay? Magaceedu waxaa loo yaqaanaa oxytocin injection. Waa cirbad loogu talagalay maadaama hooyadii xanuunkii qabanayay ama oxytocinkii dabiiciga ahaa uu jirka soo deynayo uu ku yar yahay oo xanuun fiican uusan qabanaynin hooyada, waxaa lagu caawinayaa in loo siiyo qaab cirbad ahaan ah. Weliba cirbada si toos ah ama si direct ah looguma duro hooyada ee waxaa loogu daraa faleembada markaa la siinayo. Weliba xaddi yar oo aad u yar. Cabirkaas la siinayo inta badan waxaa cabira ama qiimeeya dhakhtarka ama umulisada xilliga ee hooyada la joogto. Faleembada ayaa loogu daraa si ay u caawiso hooyada oo xanuun ay ugu imaado.
sidoo kale xilli walba hooyada lama siiyo. Waxaa jiro wax loo yaqaano bartograf oo umulisooyinka iyo dhaqaatiirta ay isticmaalaan. Waxaa jiro xilli la rabo hooyada in la siiyo. Micnaheedu waxaa waaye cirbada oxytocin markii hooyada la siinayo ama cirbada kuleyso lagu durayo waa dadaalkii ugu dambeeyay oo hooyada lagu dadaalayo. Haddii mar cirbada la siiyo oo still waqti loo qabto, waqtiga uu dhamaado welina hooyada xanuun ku filan aysan helin, inta xilliga lagu jirana aysan dhalin, waxaa loo diyaarinayaa qaliin. Micnaheedu waxaa waaye waxaa lagu fashilmay isku day walba oo hooyadaasi normal ay ugu dhali karto. Cirbadan kuleysada loo yaqaano waa go'aanka ugu dambeeya oo dhaqaatiirta iyo umulisada ay qaadato si hooyada ay u caawiyaan. Haddii xaddigii loogu talagalay wax ka badan hooyada la siiyo, maxaa ku imaan karo? Cirbadan oxytocin loo yaqaano waxay ka mid tahay daawooyinka aadka u adag, saameynta badanna leh ee loogu talagalay marka horeba in lagu keydiyo fridge ama meel qabow in ay ku jiraan. Waqtigii saxda ahaa ee hooyada loogu talagalay ayadoo la gaarin haddii la siiyo, hooyada waxaa ku imaanayo xanuun zaa'id ah. Xanuunka zaa'idka ah ee hooyada qabanayo waxa uu sababi karaa in uu minka qarxo. Waayo minka markuu hooyada xanuun qabanayo waxaa loogu talagalay inuu xanuun qabto haddana ay nasato. Contraction and relaxation inuu minka sameeyo ayaa loogu talagalay. Haddii xaddi badan la siiyo hooyada oo oxytocin ah, waxaa meesha ka baxaya relaxation-ka ama xanuunkii tagayay. Xanuun istaba joog ah ayaa hooyada qabanayo, ugu dambeyn waxaa imaan doona in uu minka qarxo. Xaddi badan oo cirbada oxytocin ama cirbada kuleysada haddii hooyada la siiyo, ayadana waxaa imaan doona in uu minka qarxo. Mar walba waxaa loo baahan yahay normal ama qiyaas wax ah in hooyada la siiyo. Laba nooc ama laba qaab ayaa loo isticmaalaa cirbadan. Qaybta koowaad waxay tahay haddii hooyada aysan weli dhalin oo uurjiifka uu weli ku jiro minka, waxaa la rabaa in hooyada xaddi yar oo cirbada kuleysada ah loogu dhex daro faleembo, sidaana lagu siiyo. Qaabka labaad ee loo isticmaalo waxay tahay in markii hooyada ay dhasho oo ilmaha ay saas u soo baxaan, cunuga marka uu sidaa u soo baxo, in hooyada si toos ah cirbadii oo sideedii ah laga siiyo xididka. Waayo waxay qayb ka qaadanaysaa in ay joojiso dhiig bixi. Qaabka labaad oo loo isticmaalo waa dhalmada kadib markay hooyada saas u dhasho in la siiyo cirbada kuleysada xididkana laga siiyo. Ugu dambeyn, inta badan markii Soomaaliya la joogo, hooyooyinka zaa'id ayay uga walwalaan cirbadan. Haddii xitaa aad rabtid inaad daawooyin kale ku caawisid, waxay kugu celcelinaysaa cirbad kuleyso ha isiinin. Waxaan rajeynayaa in muuqaalkan hooyooyinka ay wax badan ka faa'iideen cirbada kuleysada, sababta loo qaato, shaqada ay jirka u qabato, in hooyada ay si fiican u fahantay ayaan rajeynayaa oo hooyooyin badan ay wax badan ay ka faa'iideen. Talada ugu muhiimsan ee aan ku siinayo waxay tahay xilliga aad foolanayso inaad isticmaasho wax energy ama tabar wax ku yeelay si maskaxdaada ay u soo deyso hormoon ku filan oxytocin ah, kaas oo xanuun kugu filan ku keena. Waayo mar walba oo xanuunkaaga uu badan yahay waa mar kasta oo dhalmadaada ay soo dhowdahay. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii intaan aad soo gaartay waan kaaga mahadcelinayaa.